بسم الله السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإبراهيم عثمان عبد النور وقالكن أما عشر كان مانتا وحوسي قارة وقوسي ardayda barata Microsoft Access Database horey waxaynu usoo qaadanay casharo kala duwan oo ka hadlaya tableka queryga iyo formamka maanta casharkan waxaynu kaga hadli doonaa sidii loo samayn lahaa form arday oo registrationkiisii wata oo ardayga xogta magaciisa fasalkiisa iyo la qorayo la diiwaan gelinayo sawirkiisa marka form baynu diyaarinaynaa formkaas ardayga waxaan rabnaa macal sawirkiisa xitaa haddii hadhow loo baahdo in la baadho in ardayga marka xogtiisa la search gareeyo oo ilaa sawirkiisu soo boodo haddii marka ay tahay marka ay ugu horreysay ama weli aadan saarin channelkan subscribe waxaan ka codsan lahaa mar kale inaad saartid subscribe daawasho habboon hadda waxay noo samaysan waa projectigeennii koowaad ayaanu documentiga u samaynay koobaynu kasoo bilaabaynaa halkan tableka inoo yaala maadaama casharkan arday badan oo soo dhigatayna aan ugu talagalay haddii aydan tableska soo barana waxaan idin sheegi lahaa inaad casharo badan aan kaga hadlayo tableka ayaa jira inaad dib ugu noqotaan waxaan ku sameynaynaa tablekan right click save ayaan leenahay wuxuu doonayaa tableka in magac aynu u bixino marka waxaan leenahay diiwaangelinta ardayda baan leeyahay kadib okay ayaan leeyahay hadda tablekaas waxaynu ku qoranay diiwaangelinta ardayda marka waxaa laynooga baahan inaynu diyaarino arday walba la diiwaangelinayo xogtii laga rabay marka anoo jooga diiwaangelinta ardayda magaca ayaan right click siinaya kadib halka waxaad ku arkaysaan inay ku qoran tahay sign view iyada ayaan gujinayaa ID-gu marka uu diyaarsan yahay qofka ID-giisa hadhow si automatic ayuu isku qori doonaa hoostiisa ayaan tegayaa waxaan leeyahay magaca koowaad waxaan ka dhigaynaa halka okay magaca koowaad short text ayaan ka dhigaynaa marka kuwan way badan yihiin adigu qaabkan u raaco markaan dhamaystiro hadda arti screenshot ka qaado sidoo kale ardayga waxaa la rabaa marka la diiwaangelinayo in la weydiiyo magaca labaad isna waa short text labadaasaan u daynaynaa kadib waxaan rabnaa in qofka la qoro ama la xareeyo waxa la yidhaahdo fasalkiisa isna waa short text ugu dambeyn taariikhda la diiwaangeliyey sooyaalna waa la yidhahdaa afka soomaaliga ayaan qorayo kadib taariikhda halkan markaad timaadid waxaad kasoo doorataa date or time intaa haddaan doorano waxaan ku daraynaa qofka xogta laga doonaya ka mid ah sawir marka waxaan leenahay sawir baynu dhahaynaa sawirka noociisu isagu wuxuu noqonayaa attachment ayuu noqonaya halkaa hoose ayaad ka helaysaa attachment intan weeye intaan kaa raba inaad tableka u samayso haddii aad u baahan tahay screenshot ka qaado kadib hore ayaynu uga soconaynaa marka meesha hadda aynu ku jirnaa waa design view baynu joognaa marka xogta la diyaarinayo waxaan rabnaa in aynu ka baxno right click ayaan dhahaynaa isla bartii aynu tegaynaa tableka magaciisa right click kadibna meesha hooseysa oo la yidhaahdo datasheet view ayaan taabanayaa wuxuu weydiinayaa inaan save gareeyo xogtan aan qorayay yes ayaan leeyahay imika waxaynu haynaa magac koowaad magac labaad fasalkii ardayga taariikhda diiwaangeliyey iyo sawirkiisa meeshuu soo gelaa marka waxaynu u baahnaa imika form inaynu samayno hadda waxaynu samaynay waa table structurekii uun baynu hadda sii diyaarinay marka waxaan tegaynaa taabiskan hadda home baynu joognaa taabka la yidhaahdo create ama samaynta ayaan taaban kadib halkan formiska waxaad arkaysaan halkaa inuu ku jiro formka ayaan gujinayaa formka markaan gujiyo xogtii sidan ay noqonaysaa marka halkan waa ID-gii magacii koowaad magacii labaad fasalkii taariikhdii iyo sawirka marka formka haddaan hadda ku noqdo waa kan hadda kan bidixda yaallaa waa table kana waa formka iyo tableka hadda isku magac bay qaateen waayo xogtan oo dhan wuxuu kasoo akhristay formku waa tableka marka formka anoo jooga ayaan right click siinayaa save baan leeyahay magaca baan bixinayaa marka markaas waxaan leeyahay formka ardayda cusub baan odhanayaa okay baan leeyahay hadda imika waad kala garanaysaan kana inuu yahay form kana inuu yahay table marka formkan mar kasta oo ardayga aad qoraysid right click baan dhahaynaa waa inaad dhahdid form view hadda form view haddaad joogtid wax waa qori kartaa laakiin haddii aan dhaho layout view aan isdhaho ardayga magacii koowaad ma qori karo haddaan sidoo kale tago design view ma qori karo marka waxay kala yihiin form view marka ardayga la diiwaan geliya la rabaa inaad tagtid aad wax qoraysid markaad rabtid laakiin inaad qurxiso aad badhamo cusub kusoo kordhiso sida hadda oo aynu ka shaqayn doonana waxaan tegaynaa design view marka mar walbaan ka shaqaynayno design view soo istaag waa hagaag waxaan rabaa markaa cashar waxaa jiray aynu ka duubnay sida loo save gareeyo xogta oo save button la yiraahdo kaasoo isna wata labada badhan ee dib u celinaya qofka marka haddii aadan kaa soo daawan waxaan kugula talin lahaa inaad soo daawatid badhanka laakiin anaga ujeedkeenu wuxuu yahay maanta inaynu qaybta kala dhamaystirno okay sidan markuu yahay space badan oo hoos ah xagga hoose hadda aragtaan aynu badhama dhigana inooma yaallo halkan waxaa inoo yaalla form footer waan taabanayaa click baan siinayaa form footerka
kadib meeshan bifka sare markaan sida falaadh u geeyo ay qaabka noqoto clickta adiga oo haya hoos isaga jiid space-kaas aynu marka ka faa'iideysanayna aynu badhamo u samaysan doonaa badhanka ugu horeeya maadaama inagu safeta aan horey usoo dhigay aan muuqaal ugu duubay hadda sidaad aragtaan space badan buu shay walba isticmaalaya oo aad ayay u dheer yihiin marka waxaan rabnaa inaan soo koobno mid ka mid ah ayaan taabanayaa kadib halkan midigta ayaan tegayaa markay falaadho ay noqoto 2 xabo oo sidan oo kala qaabka ay tahay aad screenshot ka qaado ayaad marka clicktaad qaban dhinacan bidixda u soo jiid dhamaantood waxaad arkaysaa inay soo koobmeen oo soo yaraadeen tan ku celiyo mid ka mid ah dooro haddaan ballaarinaysid iyagoo dhan ay kugu yaraadeen oo kale markay sidaa noqoto xaggan u jiid haddii kalena waxaad samaynaysaa markay halka geeska ka istaagtid falaadha ay 2 gees yeelato sidan oo kale mid madow dhinacan u jiid way koobmaysaa marka sidan ayaanu imika u yaraynay waxaan rabnaa marka inaan bartaa ayaan soo dhigno sawirkii ardayga marka la diiwaan gelinayo sawirkiisa ayaan halkaas soo dhigayna marka halkaa waxaanu joognaa formka la yidhaahdo form design baynu joognaa kombiyuutarada qaar office-ka ku jira ayay ku xiran tahay markaa waa design kaliya qaarkood soo qoraan marka anoo jooga form design ayaan dhibicdan halkan falaadha soo furayaa markaan soo taabto halkan filekan ayaa waxa la yidhahdaa attachment marka badhankaasaan soo taabanaya attachmentiga la yidhaahdo screenshotna waa ka qaadan kartaa si aad hadhow aad ugu noqoto waan taabtay waan ku noqdaa hal mar marka halkan soo fur kan taabo marka halkaas si fiican ugu sawir adoon yaraynayn weynaynayn iminka waa kan haddii xogaa halkan korka sidan oo kale ay korka uga fulaan ciwaankiisi iyo ciwaankan uu wato saa u jiid halkaa uga yeelo durki iminka waa ka isma haystaan ciwaankiisina waa kan sawirkan halkaas u gelaya marka waxaan rabnaa hadhow qofka markaynu magaciisa iyo aynu qorno fasalkiisa iyo taariikhda la diiwaan geliyey sawirkiisana la soo geliyo marka sidaa halkaa ha inoogu yaalo waxaan rabnaa inaynu programino markaa haddaan tagno formka aan right click dhaho aan tagno form view iminka halkan waa maran tahay waxaan rabnaa hadhow marka click la siiyo in sawirkii uu ina weydiiyo inaynu soo gelin marka design view baynu ku noqonaynaa way sawirka halkan taabo kadib docdan waxaynu ka tegaynaa meesha ay ku qoran tahay data haddii ay property sheetkan laga programinayo sawirka ay ka xiran tahay haddaan iska xidho waxaad kala soo furaysaa adoo form designka jooga meesha ku qoran tahay property sheet marka hadda aan tagno data halkan ay ku qoran tahay control source ayaa waxaan tegaynaa falaadheedaas hoos u foorarta taabo kadib waxaan doonaynay sawir ayuu ahaa marka sawir baynu ka dhigaynaa iminka sawirkii waynu isku xidhnay hadda haddaan ka noqdo shay kale ma raba inaan ka dhigo laakiin sawirkaas aad ka dhigi doontaa kadib form view aan tagno xasuusnaada mar walba design view la jooga marka shayga wax laga bedelayo laakiin daartu inaad diiwaangelintii shaqada aad bilowdo right click baa dhahaysaa formka adoo magaciisa tegaya kadib waxaad dhahaysaa form view iminka haddaan halkan ardayga markaan qoro waxaan leeyahay marka meesha sawirkan tegaya click baan siinayaa iminka waxaad arkaysaan inuu i weydiinayo inaan sawirka soo geliyo marka aad baan leeyahay kusoo dar sawir computerkaaga ayuu ku geynaya waa inaad marka meel sawir ku jiro aad geysid markaan waxaan tegayaa pictures ayaasaan gelayaa sawirada mid ka mid ah iska taabanaya waxaan leeyahay open kadibna waxaan leenahay okay iminka waxaad arkaysaan halkan waa kan haddaa u baahanna waa iska dhelidi karnaa maadaama sawirka xaggan inoo yaallo laakiin waa meeshii xogta kasoo akhrinayay wey kaasi ardayga hadda waa kan sawirkiisii aan ku celiyo sawirkaa tegaysaa gudkiisa click baa siinaysaa hadda ka haddaan dhahno remove sawirku baxaya okay baan idhi plus sawir ardaygaas click baan siinayna waxaan leenahay add marka sawir soo dooro noocu doona ha noqdo wuxuu doona ha noqdo sawirada mid iska soo taabo kan oo kale open dheh kadib waxaan leenahay okay hadda waa kan sawirka saas ugu soo galay haddaan rabno godkan labaad inaan dhelino inaan formkeena ka dhigno design view kadib sawirkan taabo waxaa dhahdaa delete saasuu ku baxay hadda haddaan dhahno formkeena tagno form view dhahno click wuu inoo shaqeynaya weli sawirka haddaan remove garayaan sawirkee la rabo inaan soo geliyo kan oo kale anoo kale dhaho uu shaqeynaya marka kan waxaynu u baahanahay marka koowaad aynu shaqada soo bilaabanayno formka iminka waxaynu haysanaa waa sawirkii badhan safe ah oo safe garaynaya qofka dad oo mid horeyna u soconaya soon celinaya hadda haddaan sidoo qof kale qor aan dhahdo cali jaamac oo sawirkiisana aan soo geliyo ad sidii markii oo kale ada sawiraad baraadka laga samayso iskala soo deg okay baan leenahay hadda haddaan dhaho qofkan aan rabnaa inaanu marka hadda ardaygaas markaa sawirkiisa isna wakaa saasuu kusoo gelaya arday walba sawirkiisa kusoo gelaya waxaan u baahannahay marka inaynu samayno qurxin baa inoo dhiman iyo badhamadii kale hadda waxaan rabaa aanu designka tagno badhan waxaan rabaa hadda kuwan way kala fog yihiin intaan saa u doorto aan kor usoo qaado bartaasoo kale aan dhigo badhan waxaan doonayaa daabacaya xogtooda marka
halka aan tago badhanku waa kan sidan hoos u dhiga daarabtid bartaas oo kale saas oo kale dheh ilaa meelaha kadib print waxaanu sameynaa godka labaad baan tegaynaa halkaas aynu ka helinaa print kadib waxaan leenahay finish marka hadaba ka mid wax taabacayana helnay mid dhileedayana aynu soo sameyno badhankaas oo taaba oo ogaada meesha badhankan ka taabanayana meesha ay ku qoran tahay form design ama design kaliya laga yaabo in computer kala yeeshaan mid dhileedayana kan inoo dhinac dhig sidoo kale u yara dhow dhileedku wuxuu ku jiraa isna ka labaad halkaasuu kaga jiraa waa number 2 number 2giisu dhileed ku jiraa screenshotna waa ka qaadan kartaan marka next aan dhaho dhileedku sawir ahaan buu soo baxayaa dadka qaar waxaan inuu dhileed yahay ma fahmayaan marka text baan u bedelaya okay marka hore halkaas aynu joognay ka labaad baan doortay next kaliya nidhi halka picture-kii doornaa baan text u bedelay dhileeddaasaan kusoo reebay marka dhileed baan kusoo reebaynaa kadib waxaan leenahay finish hadaba ka badhan wax dhileed aynu haysanaa waxaanu rabnaa kale mid ardaygii marka la raadinayo kala searchintii badhanka soo taabo haddana searchta sidan aan u yara dheereynayaa kadib godka ugu horeeya kiisa labaad ayaa waxa la yiraahdaa searchintu kaasoo ku jira marka screenshot waad ka qaadan kartaan meelaha u baahantiin next baan leeyahay kadib isagana waxaan iska leeyahay finish calaamadii searchintu marka waa ka haddii la yiraahdo qof raad waan tijaabin doonaa waxaan rabnaa isna sidoo kale mid dhaliiday waynu haysanaa wixii oo dhan waynu haynaa kii xidhayay baan rabnaa foomka diiwaangelinta markaad dhammaysid kii close-kii markaan taabanayaa halkaasaan iska dhigayaa okay foomkan teginaa halkan ka saddexaad kadibna waxaan teginaa kiisa labaad number 3ga number 2giisa next markaan dhaho isna sawirkan ka bedelaya waxaan inuu de xidhitaan yahay lama fahmayo text baan dhahayaa close form baa inoo soo baxay finish baan leenahay iminka waxaan haysanaa foomka mid xidhaya mid ardaygii baaraya mid hore u soconaya mid dib noqonaya mid dhileedaya iyo mid daabacaya waxaan samaynayaa intaynaan tijaabin background-ka hadda waa caddaan oo mid fool xun background-ka see u bedelnaa kalik baan dhahaynaa background-ka kadib halkan waxay noogu qoran feedback haddaan taabano aan color iska soo doorano wixii oo dhan baa hal mar isbedelay okay qaab ka qurux badan baa laakiin jira oo background-ka loo bedeli karo halkan property sheet waxaan kasoo dhiganaynaa form baynu ka dhignay kadib halkaa waxaa noogu jira formatkaynu tegaynaa format markaynu tagno halkaa waxaa ku qoran waxa la yidhahdo pictureka hadda waxaa kuma jiraan laakiin saddexdiisa dhibcood haddii aan click siiyo wuxuu nageynayaa sawiradii markaan tegaynaa downloadkan tegaya sawiraan la soo degay baan anigu tijaabinayaa kaasoo kale okay baan iska leeyahay okay cabirkaa weli khaldan cabirkiisa bartaa ay ku qoran tahay picture size mode ayaan intaan taabto waxaan leeyahay zoom hadda form view aan ka dhigno hadda waa kan ardayda marka la diiwaan gelinayo qaabkan u muuqanaya weli cabirkiisu ma fadhiyo sawirka hareerihii buu ka maran yahay waxaan ka dhignaa zoomta aynu bedelno waxaan ka dhignaa stretch baan ka dhigaynaa stretch okay iminka aan form view dhaho haddaba ka ardayda marka la diiwaan geliyo weli fartii halkan madow ku jira laakiin ma bedeli karnaa background baynu u sameynaynaa aan ku noqdo haddaan sawir qurux badan idinku sawirka waxaa kala soo degi kartaa anu googlahan galay intaasaan ku qoray gradient school background marka waaba kan sawirka aan dul taaganahay right click baan idhi kadib waxaan dhahay save image marka downloadskaygu ii tegay save baan kusoo dhufta markaas inta waa ku qori kartaan ama waxaad doontaan okay sawirka marka waxaan u baahnaa inaan hadda ku sameyno design intaan rabno waa farta aan muuqanayn waa kan iyo magacay intaa marka waxaan sameynayaa control haynayaa ID-ga taabo magacuna waa ii taabnaa haddana control haya kan taabo kana taabo kan laftirkiisa taabo waxaan rabnaa inaanu farta aynu background baynu sameynaynaa marka right click baan siinayaa halkaa fill back ay ku qoran tahay waan taabanaya kadibna waxaan ka dhigaynaa color muuqanaya inuu u baahannahay inuu yahay caddaan oo kale haddaba ka foolxum noqday laakiin caddaanka ka bedel right click si waxaan ka dhigaynaa madowga kale waa macquul fartooda marka la bedelinayo iyagoo saa isku haysta right click font colorka waa kaa caddaan ka soo dooro kalarada xagga ku jira okay background inkasta weli seleksanahay laakiin aan bedelo idinku kale dib soo waxa doontaan ma ka dhigan kartaan bal ka aan ka dhigo sidaa hadda aan tijaabiyo marka soo ku noqonayo form view baan leeyahay imika waa kan wixii oo dhan sidayna u shaqeynayaan hadda Khalid baa qoran hore u gudub number 2 waa Cali haddaan sidoo Khalid hadda xogtiisa raadi search baad tagaysaa marka halkan magacaad ku qoraysaa waxaa leedahay magaca maxay noqonayaa Khalid baynu baaraynaa soo maaha enter baan leeyahay haddaba ka Khalid macal sawirka isbedelaya hadda qofka kale magaciisu muxuu ahaa aan soo eego waa Cali soo maaha search ta tag iskana hubiyo hadhow markaad bedelaysaan halkan ha idin noqoto
barta current document ka dhig halkan whole field ka dhig sidan haydin wadaado kaasna all ha noqdo sidan marka halkan sawirka qaata marka wax baaraysaan waxa laga yaabaa inuu magacba uusan ku raadin karin oo ID ku raadin karo ama kaliya marka qofka aad marka dul taagan tahay uu ku baari karo marka barta waxa ka dhigtaan current document halkan waxa ka dhigtaan whole field halkan all ka dhig marka hadda Khalid waan raadinay Ali aan qoro enter aan dhaho Ali waa layna keenay haddaan tirtiro Khalid aan qoro aan enter dhaho waka sawirka qofka waa bedeli karnaa hadda kan click baan siinaya sawirka remove arbaan la sawir kale aan soo gashanayna wuxuu doona ha noqdo aan sawiradeedu halkan ay ku jiraan kaasoo soo taabtay open markaan raado automatically markaan sawirka u socdo markaan eekay dhaho eega okay markaan dhaho ka waxaynu haysanaa search intii waan tijaabinay print hadaan taabano kale printer hadda inaguma xirsan oo weydiinaya hadaan dhaho close form wuxuu leeyahay ma saf garayaa yes formkii oo dhan buu naga xidhay laakiin bidixda inuu yaala right click baan leeyahay open kan waa kii xidhay kan waa kii laga raadinay kan uu dhaleeyahay hadda aan tago qofka labaad caligaas aan dhaleeyahay delete baan leeyahay yes baan dhahayaa saas oo dhaleeyahay marka dib aan ugu noqdo kii kale sidaas uu sameeynaya marka qofka marka sawirkiisa aad sameynaysid waa ka sawirkii godkiisa right click ama click baa siinaysaa right click uma baahnid click baa siinaysaa aad buu leeyahay sawir ku soo darso qofkan sawirkiisa kadib sawirkii soo geli open kadib waxa dhahdaa okay qofka marka diiwaan gelinta dhamaysid waxa ku dhufanaysaa badhankaagi safeta haddii marka aan in yar dib idinku celiyo marka sawirkan la sameynayo godka sawirka aan hadda dhaliido waxaan tagaynay halkan aan furaynay kaasaynu tagaynay kadib sidan aan u yara sawiranay sawirkeena haddii uu kaa isku beega baan idinku yidhi xaggan saa usoo jiida xitaa waxaa awood u leedihin meesha attachment ku qoran tahay inaa click siisaan aad ku qortaan sawirka qofka oo kale waxaa rabtaan ka dhiga kadib sawirkan ma programsana waa inaad taagtid waa inuu sidaa huruud u yahay halkaa data tegaysaa data markaad tagtid bartaa control source aad soo furaysaa waxaad ka soo dhigaysaa sawir baad ka soo dhigaysaa sawir baa ka soo dhigaysaa sawir markaa ka soo dhigtid wuu ku dhan yahay okay sawir markaa ka soo dhigtid datada waa ka soo tag formaatkaad imanaysaa marka okay marka halkan aanu qurxintii wixii baynu u soo galaynay backgroundka laakiin sidaas ku dhanta marka datada tagtid control source aad ka soo dhigtid sawir marka phone view aan tagno imika markaan click siiyo hada qof cusub aan tago kuna oran okay ka soo marada hadaan godki sawirka click siiyo waa kan add baan leeyahay sawirka soo dar ka soo kala taabo ama mid kale open okay sawirka hadda qofka rabtay inaad sawirka ka bedeshidna click baa sinaysaa remove leedahay sawirku ka baxaya marka casharadii hore ee save bartanka iyo kii tabilada dib ugu laabta kanna marka qof walba si aad u fahanto dhowr jeer ku soo celceli channelka haddii aad ku cusub tahay subscribe inoo saar u sii share gare arday aad isleedahay ka faa'iidaysto wixii su'aalo ah aad fahmi weydaan ama wixii casharo ah aad isleedahay macalinku muuqaal ah ka soo diyaariyo qaybta hoose commentiga noogu reeba muuqaalkana like saar asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh